daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada panel kooban oo aan ku dul istaagayno kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliya gaar ahaan xeebaha Puntland. Panelka kooban waxaa igala qayb galaya Professor Maxamed Maxamuud Quluxiya oo dabcan ka tirsan maxadka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland iyo sidoo kale Dr. Maxamed Ali Funow oo iskaashatada kalluumaysiga ee Puntland. waxaa sidoo kale isagana baanka qaybka engineer Jimcaale oo ah ka socda dabcan jaamacad Sitcoot ahna dhinka kuliyadda cilmiga badda iyo kalluumaysiga ee jaamacadda Sitcoot dhamaantiinba ku soo dhawaada panel kooban engineer Jimcaale hormuudka kuliyadda kheyraadka badda iyo kalluumaysiga ee jaamacadda Sitcoot maxay yihiin ujeedooyinka ugu waaweyn ee kuliyadda sayniska badda ee kalluumaysiga gaar ahaan marka la eego horumarinta kheyraadka badda ee Soomaaliya aad baa mahadsantahay agaasimo ogo runtii waa kaaga mahadcelinayaa abaabulkan panelkan runtii sidaad ogtahay caqabado waaweyn haysta industry-gan fishery-ga waxaa jira caqabado caalami baa jira oo ay ugu horeeyaan illegal fishing-ka wasakhowga kalluunada si dabar go'aya cimilada si xumaanaysa waxaa sidoo kale jira caqabado heer national level oo arkayso wadankeena infrastructure-ka inuu weak yahay iyadoo intaas dhan ay jiraan ba waxaa jira caqabado state level oo dadka reer Puntland haysta marka waxaa loo baahan yahay industry-gan in la horumariyo taas li ajligeed cid walba role ba ka saaran anaga ka jaamacad Sitcoot ahaan waxa naga saaran role ah inaan soo saarno kaadir ku hubeysan waxbarasho iyo xirfadlayaal waa taas baa ugu muhiimsan sababaha keenay in jaamacadda kuliyaddan la establish gareeyo oo kor loo qaado dadka xirfadooda si ay yani caqabadaha jira u dhex tibaaxaan oo wax uga sahlaan aad waa santahay engineer Jimcaale ku salaabanaya Professor Maxamed Maxamuud Quluxiye maxadku ma leeyahay qorshe lagu taageerayo kalluumaystada yaryar si ay u helaan qalab casri ah oo kalluumaysiga lagu soo saari karo wuu leeyahay oo waxa weeye marka aanu maxadka sameynay baa qorshaha sameynay in anagu aanu kalluumaystada Soomaaliyeed ama kuwa Puntland iraahday aynu ku taageero dhinacaas laakiin anaga lafteena caqabadna haystaa waxa weeye anagu uma heli karno qalab laakiin waa u qeylin karaa oo wasaaradihii mataqaanaa wasaaradda kalluumaysiga oo kale wasaaradda gaadiidka badda dekedaha baanu mataqaanaa u qeylinaa oo had iyo jeer rahnaa waa in mataqaanaa la taageeraa oo kalluumaysadaasi la siiyaa qalab iyagu ku filan oo ay ku shaqaystaan marka anagu waynu yaala qashaas aad baa mahadsantahay oo ku salaabanaya Dr. Funow sidee iskaashatada kalluumaysiga uga qayb qaadan karaan hirgelinta siyaasadda waarta ee lagu horumarinayo kalluumaysiga iyo ilaalinta guud ahaan noolaha badda waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu dhowri karo oo wacnaha kalluumaysiga waxaa ka mid ah kalluunku qaybina waxa weeye waa qayb hadeer wali inoo caadi inoo ah iyo qayb si dabar go'aysa marka waxyaabaha moogtahay waxa marka la rabaa in la saaro bal kalluunka moogtahay si dabar go'aya ay ka mid yihiin qubada iyo indhabuurka iyo in la joojiyo shabaagahan maartay caaga ay cimrigoodu uu sii dheeraanayo waqti dheer macnaha uusan la falgali karahayn macnaha uusan la falgali karahayn moogtahay saaruqdii iyo moogtahay uu ku milmi karin wax soo saarka badda sidaas ayaa moogtahay lagu dhowri karaa kalluunka maartay dabar go'ay iyo kalluunka guud ahaan aad baa santahay Dr. Funow